horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland waxay la shirtay dhalinyaro gabdha toddobaadkii la soo dhaafay oo ka soo qalan jabiyay jaamacadaha dalka waxaana ay kala xaajootay sidii loogu sameyn lahaa xirfadaha kala duwan shaqaalaha wasaaraddu waxay ka qayb galeen kulamo looga hadlayo ka hortagga tacadiga sida dadban iyo sida tooska u dhaca kobcinta xirfadaha dadka la shaqeeya dhibarayaasha iyo sirqarinta warbixinta dhibanaha tacadiga uu qabsaday wasiirka wasaaradda haweenku waxay kulan la qaadatay hay'adda GRT oo ay ka wada hadleen barnaamijka daryeelka carruurta dayacan wixii khibrada oo laga helay habkii loogu tallaabsan lahaa in la qorsheeyo hab dhaxalgal ah oo lagu diyaarinayo qoyska ilmaha dayacan daryeel iyo dhaqaalana lagu hagayo arrimaha carruurta wasaaraddu waxay shir u qabatay odayaasha iyo guurtida ka qayb qaadanaya doorashooyinka iyo inay taageero buuxda ay siiyaan haweenka u sharaxan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenku waanise waxay kula kulantay hay'adda DRC waxaana ay ka munaashaqoodeen sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta loogana wada shaqeyn lahaa warbixinaha qorsheynta sanadlaha oo lagu darayo baahiyaha jira ee wasaaradda ururiso wasiirku waxay gudoomisay shir lagu diyaarinayo haweenka ka qayb qaadanaya nabadeynta iyo difaaca gobolka Mudug wasaaradda haweenku waxa ay diiwaan gelisay 70 caruur agoon ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga isla markaana waxbarashada ay ka bixinayso hay'ad islaamiya wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee dawladda Puntland waxa ay safar ay ku tageen mas'uuliyiin ka socda gobolka Highland si ay wax uga ogaadaan xaaladaha dalka iyo dadka iyo abaaraha ka jira deegaanadaas isla markaana waxa uu la kulmay dad badan oo u jilicsan abaaraha baasan ee ka jira dalka waxaana ay ka wada hadleen waxyaabaha ay u baahan yihiin in dadkan laga caawiyo oo ay ugu muhiimsan yihiin biyuhu xafiisku wuxuu ka qayb qaatay tababar soconayay 2 maalmood oo ku saabsanaa awoodsiinta iyo isku xirka isuduwayaasha iyo qareennada bilayska iyo sidoo kale dadka u ololeeya xuquuqda carruurta iyo haweenka intaba xubno ka socda wasaaradda haweenka ayaa waxay safar ku tageen tuulada Horfadhi oo ka tirsan gobolka Cayn si ay wax uga ogaadaan xaaladda haweenka iyo carruurta ee deegaankaasi ku nool waxay sidoo kale ay ka qayb galeen xaflad lagu soo xirayay ciyaaraha sanadlaha ah ee loo qabto dhalinyarada gobolka Cayn taas oo lagu dhiirigelinayay dhalinyarada inay ka waantoobaan falalka xunxun ay ka mid yihiin tahriibta xagjirnimada iyo burcabadeednimada intaba